munaasabadani waxay mid hanaanka dhicitaan si weyn loo soo gimgimay oo lagu soo bandhigay calanka midnimada beesha Sheekh Khalid oo ka qabsatay magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya. kulankani oo ahaa mid daba socday kulamo kale oo kala duwan oo ka dhacay magaalooyinka caalamka ku yaala gaar ahaan Xamar iyo Minneapolis. ujeedka kulankani ayaa sidii ay beeshu ugu midoobi lahayd danaha guud iyo kuwa gaar ahaaneed iyo arrimaha samafalka isku xidhnaanta danta guud. munaasabadani waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada, dhalinyaro, aqoon-yahan iyo weliba sidoo kale waxgarad. hal doorkii kala duwanaa ee halkaasi ka hadlay ayaa dhammaantood ku dheeraaday ahmiyadda ay midnimada beeshani leedahay, waxaanay tilmaameen sida waqti xaadirkani loogu baahan yahay midnimo lagu tanaado. marka waxaan rajaynayaa inuusan dhalanteed noqonin. waxaan idinkala dardaarmayaa tafaruq baan idinkala dardaarmayaa. ha ahaado ulajeedad inuu meel hore ahaato, meel fog ahaato. waddanka xeebaha iyo beeraha iyo dhulka aad leedihiin nimcada waa idinkuda sugayaa. idinka jiilkan weeye, waa habeenkii xornimada weeye, waa xornimo weeye. waxyaalo badan oo sheegi lahaa saxaafad lagama sheego, laakiin ururadii iyo aqoon-yahanadii iyo gudiyaashaan u sheegi doonaa. waxyaalo badan baa laabtayda ka buuxa oon sheegi doonaa ood ku socon doontaan. waa xornimo weeye, caawa guul weeye caawa waa guul weeye, farxad weeye, waa ciid weyn weeye, waa waxaan sugayna oo gaadhna weeye. wakhtigii baa la gaadhay, wakhtigii degaanka iyo dadka iyo diinta aad wax u qaban lahaydeen baa la gaadhay. horay u socda insha allahu, wabilaahi towfiiq. aad baan idin salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullahi. waa inuu hagaajiyo xidhiidhka isaga iyo qoyskiisa ka dhexeeya. qoyskiisa laga bilaabo hooyadii iyo aabbihii, laga bilaabo xaaskiisa iyo carruurtiisa, maaragtay habaryarihii iyo ayeeyadii, dhammaan laga bilaabo qof kasta waa inuu dib u baadi doono qaraabadii. يعني qoyskaaga waxa kamid aha dhamaan abtiyaasha iyo adeerada iyo habaryaraha iyo dhamaan waxa weeye qofku inuu hagaajiyo. arinta aadka muhiimka ah ee qof kasta laga rabo inuu hagaajiyo waa maxay? arinta bulshadu ay ku leedahay qof kasta waa inuu hagaajiyo. nin walba waa inuu ka shaqeeyo xiriir wanaag. marka waxa is weydiin leh dhalinyarada hadda barnaamijkan caawa soo samaysay, haddii ay dhacday inay isu keeneen beel dhan ay isu keeneen iyo beelihii kaleba halka waxa ka muuqanaysa xiriirkii horta bilowday. arrintan horta arrin fiican weeye in dadka la isu keeno, calan loo sameeyo, dadkii yani qoyskii hatta waxa calan samaysan kara wiilkii iyo aabihii calan samaysan kara horta hore. calankan su'aal baa is weydiin leh, yani calankan Soomaalidu qabaa'ilku ay samaysanayaan ka waran wax mushkil ah ma leh. meesha waxaan rabaa anaa fatwada inaan idin fatwada caawanaya. xafladan aad ku qiimaha badan, aad ku qaayaha badan ee isku keeneen banweynta Faq Cumar, anigoo magacayga ah Cabdalla Hindi, una taagan xildhibaan gobolka la dhaho Mandheero. dabcan Mandheero si fiican u taqaani Soomaa. marka waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo dadkan ka dhashtay bahweynta Faq Cumar. waxaan aad idin salaamayaa dhammaantiina, anigoona ku dheeraanin khudbadda. waxay leeyahay ilaahay xifdiyo. walaalayaal wanaga haddaan nahay beesha Sheekh Khalid, waxaan ay beel aad u tiro badan oo aad u weyn. haddana meel kasta aan joogno ma muuqano. dadka waa ka xoolo badannahay, kama xoolo liidano. dadka waa ka tiro badannahay, kama tiro liidano. dadka waa ka aqoon badannahay, aaminsanahay sida aan arki jiray. diini iyo maadiba cidna nagama horrayso, laakiin dhibka jira waxaan jirin isku duubni la'aan. intii hore haddayna agradeen, waxaan idin leeyahay intiina dambe horay ha loo socdo. insha allah biidnillaahi tacaala. maanta keliya nooma ahaan doonto, waa sidaan u bilownay hawsha. waxaan idin leeyahay rahla gurani gubandusheeda hilib dusheedii hoosungo gurni geesiyadii raasacadey doola janno kaxada kale ila booqo
miraha la gurani goban dusheeda hilib dusheedii hoosun goo gurni geesiyadii raasa caday doola janno kacada kale ila booqo calanka dhankiistaanula dugubiya ma ahe 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 سيدي شغل وشرف بدلو سيدي شغل وشرف بدلو نبهنا وروح له لاقيات نبهنا وروح له لاقيات سيدي شغل وشرف بدلو سيدي شغل وشرف بدلو نبهنا وروح له لاقيات نبهنا وروح له لاقيات بنسمو وجود كله ضبو دوسنا وشنا وهسيدو قابدا وروح له قبتي لا قبح شو كنت شغل بنسمو وجود كله ضبو دوسنا وشنا وهسيدو قابدا وروح له قبتي لا قبح شو كنت شغل calanka dhankiistaanula dugubiya ma ahe 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 سيدي شغل وشرف بدلو سيدي شغل وشرف بدلو نبهنا وروح له لاقيات نبهنا وروح له لاقيات سيدي شغل وشرف بدلو سيدي شغل وشرف بدلو نبهنا وروح له لاقيات نبهنا وروح له لاقيات